كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعشركي لaba boqol iyo laba tobnaad qaybtii shanaad ee barnaamijka barbaarinta ubadka waxaynu ku jirnay qaladaadka ubadka markaasi waxyaabaha keeni kara waxaynu eegi doonaa 10 markaa hab ama 10 qaab markaa oo ubadka ka caawinaya ama dadka waaweyn ka caawinaya waxyaabaha ay qaladaadka markaa maxay ka baran karaan waxyaabaha markaa maxay ay samayn karaan markaa kow horta waalidka wax looga baahan yahay ama ubadka yar looga baahan yahay markay noqoto markay la macaamilayaan qaladka iyo mistake markaa inay ogaadaan aqoon u yeeshaan ama aanay rajaynin inuu jiro markaa maxay wax perfect ah ma jiro maxay adduunka unkiisa qof markaa maxay wax perfect ah oo dhammaystiran ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa maxay kaamil ah laakiin qof kasta maxay hoos u dhac iyo muhiim iyo negative qof kasta uu leeyahay horta waalidku maxay ubadka waana isku baraarugsanaadaan baa la yiraahdaa shiiba maxay qaladaadka waxyaaba looga barto lambar 2 waxa la yiraahdaa ubadka yaryar markaa waa in marka qaladku ka dhacay salahan ama dagab sameynayaan ama mistake soo imanayo waa in marka loo ogolaado jacaylka waalidka ubadka yar u hayo inuu markaa yahay mid markaa unconditional markaa hadii salahan hadii qalad sameeyo in markaa la nacayo ubadka markaa waxay in leeyahay markaa nin jacaylkayga macnaha qalad inaad sameeysid kuma xidhnay waa any time markaa ama xilli kasta ilmahayga baa tahay xilli kasta anoo ku jecelahay hada khalad gashid inay baa tahay hadaad markaa qaado maxay sax sameeysid de markaa inantayda baa tahay markaa shay weey saan loo sheego ta kale iyadana waxa la yiraahdaa khaladku markuu dhaco ilmihii yaraa ama wax ka qaldamaan ama gaf u sameeyo khaladka markaa waxa weeyaan laga shibadbadinin markaa laakiin ugu mashquulo focuska la saaro baa xalka markaa solutionka markaa ilmaha yar waxbuu daadiyay waxbuu qubay waxbuu kala meel buu jiray imtixaankii wuxuu se keenay salahan dad bay islaayeen oo kale waxana maxay u dhaceen wayba dhaceen buu reedo shayga u dhacayba laakiin solutionka maxalka loo baahan yahay in la raadiyo ta afraad waxa weeye bayadana la yiraahdaa ubadka yaryar waa in la siiyo marka wax leeyahay examples marka waa in la siiyo marka maanta imtixaankii salaamaarkii soo se keeno iskuulkii ku adkaado quraanku ku adkaado waxa laga rabaa waalidka inay iyagu mistakeskoodii hore ama qaladaadkoodii hore ama caqabadihii iyo challengeska nolosha ay kala soo kulmeen inay uga waramaan oo yiraahdaan war waxan way iska caadiyo anagu waa imtixaanka quraanka 10 sano dhigeen 5 sano dhigeen 6 sano dhigeen maana soo dhigan bisha maana soo dhaaftay macalinkaas noo garaaci jiray adiga waad chance fiican haysto mobile haysto oo maxaan laptop ka dhigaysan karo macalin fiican haysto waka ka kacmeesh ka waxa weeye ka shanaad waxa weeye bayadana la yiraahdaa waa in ubadka lagu dhiirigeliyo macnaha inay responsibility ay qaadi karaan markaa qaladka markaa in ubadka ay ogaadaan inay macnaha qaladka markaa ay galaan inay markaa ay qaadi karaan markaa oo aanay cid kale oo maxay aanay uga cabanin markaa si qofka salaah qalad u sameynaya oo kale waxa laga yaabaa in waalidka qof kale maanta uga sheekeeyo ilmahay waxaan u sameeyay halkan ka dhacay waxa taas muhiim ah isagana maxay in la sheegtid isagu ma ku tiraahdo isagu inuu culays ka qaado weeye marka dadka kale horta waxbaanada maxay aad ku canaanaan ta kale waxa weeye baa la yiraahdaa saa hore inuu sheegino kale wixii tagay way tageen macnaha faad baa la sheegay haduu soo dhacay ama sanadka hor dhacay bil ka hor dhacay maanta dhacay haduu soo dhamaado baa la yiraahdaa way marka wax la marka la tirtiro shayga marka taagan qofka marka gacanta ku hayo in laga fakaro weeye baa la ta kale waxa weeye baa la iyadana muhiimka ahi haddii ilmihii gefkii ama qaladkii ama shay ka dhacay marka uu qirto oo yiraahdo de wixii waan sameeyay raas u dhaceen in marka maxay de la amaano leeyahay marka aad fiican tahay way marka dib dambe marka ugu noqon marka in marka si fiican marka maxay de loogu sheego marka inuu qaladka aan dib dambe ugu noqonin wixii ka dhacay marka waalidku la socodsiyo marka ta kale waxa weeye isagana waa maxay haddii waxa uu qabanayo oo kale iyada taas u soo dhowdahay waxay iyadana marka hoos u dhac ku yimaado oo kale waxbarashada uu dhiganaya meel buu aadaya oo kale waxbarashada hoos u dhac baa ku yimid uu dadaalay marka improvement fiican buu leeyahay uu dadaalay markiskiisii hore meeshiisu shaqadu aaday waxay u qabanayay xilligu seexanay waxyaabo cuntada soo cunaya cunto fiican baa maalin hore cuni jiray maalin wax yar buu cunay markii uu fiican si fiican buu cunay wuu isbedelay waxa la marka waa maxay way marka iyada waxa la marka lagu dhiirigeliyo marka lagu ama loo sheego qofkaas inuu wax soo kordhiyo halka shay maanta aanu taagnayn marka
takale waxa la yiraahdaa marka waa maxay waalidku waa in mar kasta wax la yiraahdaa ay ubadka markay dhinaca qaladka noqoto waa in mentor ugu noqdaan baa la yiraahdaa mentorku waxa weeye qofka macna qofka hagayo weeye marka hana mar kasta waa maxay talaabo kasta uu qaadayaba de weyga habka waalidku ay ilmaha marka ay deewa maxay bridge ay u dhaafiyaan ay ku xiran tahay marka hadana ka gudbi kartaa wada dhaafi kartaa waxaan waa shay caadi marka xaggooda ku xiran hadii dhahan waan adigu dishalay aad maanta ka liidataa maalin kasta xagu dhahan maalin kasta maalin ka dambe si xumaanaysa bay dhahan waalidkina moog laakiin way dhahan maalin kasta maxay wad si fiicnaanaysa marka takale waxay dhahan shayga markuu qalad ku yimaado markasta waxa la yiraahdaa waa in laga fiirino maxay dhinaca negative-ka ah ee laga fiiriyo marka maxay dhinaca positive-ka ah marka qoliyaha markay ka hadlayaan kelmadda fail marka laga hadlayo oo imtixaanada marka qofka hadii loo fail baa loo soo qoray qoliyaha gaaladu way kala qaadan waxay dhahaan waa first attempt in learning bay dhahaan ana ft failka ft waxay dhahaan waa first aid waxay dhahaan waa attempt aid waxay dhahaan waa in ash waxay dhahaan waa learning waxay dhahaan qofkani waa markii ugu horeysay ma maxay wax isku dadayay bay dhahaan marka markii ugu horeysay wax isku dayay marka waxay ka hadlayaan inuu hadda qofkaas waxa ku taagan yahay waa caadi ama first attempt ay tahay hadii maanta adigoo jaamacadda ama iskuulka ama caadi waxay leeyahay macna qofka wax hoose keeno oo masalan oo loo soo qoro fail loo soo qoraba iyagu waxay taagan yihiin qofkaasi oo koob uu taagan yahay hadduu qaladka soo maxay wax ka baran karaaba oo meel fiican ba ka eegayaan marna waxay dhahaan lillahi waxa suwaaba dhamaadayba oo end la yiraahdo bay dhahaan wala shaygaas wuuba dhamaaday oo waxaas ka dhamaatay dib u sameyn meesh qaban meesh waxa ma sameynayso waxa end hadii loo soo qoro waa la yiraahdaa iyadana waxay u taagan tahay indifference never die bay dhahaan macnaha dadka dadaalo oo kala waxay dhahaan dadaalku weliga ma dhinto bay dhahaan marka weenan mar kasta ubadka yar markaan loo quuskooyin markaa oo niyadaan laga jebin waxba yar dhiganaya waxba yar cunaya waxba si khayr noqonayaan eber bi waalid ka dhigayaan meel magac ugu yeeraan midna sidaan ka mid tahay meel ma gaadhay adigu mana amadiga kor u qaadi kara amadiga hoos u dhigi kara waalidkina taa maxay ay fahmaan weeye markasta marka cashirkaasna maxay 10ka weys ama 10ka hab hada waalidka ubadku inay iyo waalidku labadaba qaladka maxay ka baran karaan casharada ka baran karaan iyo in shaa marka maxay number 1 ay ogaadaan macna qof kasta inaan dib perfect ahayn oo kale iyo xawaas marka maxay ayaa kamid ah marka cashirkaas ku jirnaa wallahu subhanahu wa ta'ala ala